kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka Xareed Media waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga mudiirka oo habeenada Isniinta iyo Khamiista soo galayaan aad ka daawataan janalka Xareed Media daawadayaal habeenimo Isniin soo galayso 29 bisha 3 ee Maarso sanadka 2020 qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijka bandhiga mudiirka waxaa kamid ah deyn cafinta maxay Soomaaliga kaga dhigan tahay warbixin ka hadlaysa ayaan idinku soo gudbi doonaa haduu eebweyne yiraahdo sidoo kale waxaan idin haynaa coronavirus maxaa ku dhacay ragga Malaysia markii la yiri reerka uu soo adeega intaasi daawadayaal waa qodobada aan ku qaadaa dhigi doona barnaamijkeena fadlan daawada hadii aad nagu cusub tahay ku soo biir asxaabta nala jaan qaado oo subscribe saar channelka gambalelkana furo muuqaalkana like saar lana wadaag asxaabtaada si aan u ogaano qodobka ku xiisa geliyay fadlan follow inooga reeb waatahay daawadayaal markaana waxaynu gudagalaynaa barnaamijka bandhiga mudiirka qodobka ugu horeeyana waxa uu yahay deyn cafinta maxay Soomaaliya kaga dhigan tahay Soomaaliya oo ah dal alle ku manaystay khayraad oo wali aanay jirin cid Soomaali ah oo ka faa'iideysatay ayaa waxa lagu lahaa lacago deyn ah oo ay dawladii dhexe ee kacdoonkii reer miyiga lagu riday 1991 ka soo amahatay dunida deyntaas oo ahay lacag aan ka badnayn 600 milyan oo doolarka Mareykanka ah ayaa dul saar 30 sano sii korayay awgeed gaartay 5.2 bilyan oo doolarka Mareykanka ah maadaama la waayay dawlad Soomaaliyeed oo leh awood oo ay ku bixiso ama cafin ku dalbato muddada deyntan ay ku sii kordhaysay dalka waxa barbar socotay xayiraad maaliyadeed oo la kulmayay dalka gaar ahaan bangiyada iyo waliba xawaaladaha gaarka loo leeyahay oo dunida inteeda kala kulmayay cadaadis dhaqaale taasoo ay u dheereed loolanka ganacsi ee dhigooda kugula jireen kasbashada macaamiisha Soomaaliyeed ee dunida daafaheeda ku nool Soomaaliya oo 30 sano ee la soo dhaafay liiska hore kaga jirtay dalalka musuqmaasuqa hareeyay ayaa ugu dambeyn 25 Maaj sanadkan 2020 waxaa mar qura ka soo yeeray hay'adaha maaliyadeed ee dunida sida hay'adda lacagta adduunka bangiga adduunka iyo bangiga horumarinta Afrika inay hadda muuteysatay in la cafin karo deynta lagu leeyahay ayna ku guuleysatay talaabooyin laga doonayay inay mid u fuliso waxayna ku amaaneen daahfurnaanta maaliyadeed iyo soo kabashada dhaqaale ay sameynayso dawladda hadda jirta dhanka kale waxay shaaciyeen in deynta Soomaaliya 25 Maarso sanadka 2020 wixii ka dambeeya ay noqon doonto 557 milyan oo doolarka Mareykanka ah halkii ay ka ahayd 5.2 bilyan oo doolarka Mareykanka ah balse deyn cafinta maxay Soomaaliya kaga dhigan tahay inta u dhaxaysay 1 Janaayo 1991 ilaa 25 Maarso sanadkan 2020 Soomaaliya waxa saarnaa xayiraad maaliyadeed mana jirin dawlad dunida ku taalo oo Soomaaliya la gali jirtay heshiis ganacsi ama dhaqaale oo aanay gogol fadhi ka ahayn qaramada midoobay mana jirin shirkado ku dhiiran karo inay maal gashadaan dalka oo wixii khasaare ka soo gaarana ku dacweyn karay dalka oo la tiigsan karay maxkamadda dunida sidoo kale ma jirin ganacsade Soomaaliyeed oo maalgashi sharciga waafaqsan ka sameyn karay wadan kale isaga oo wata baasaboorka dalka Soomaaliya mana jirin hay'ad maaliyadeed oo Soomaali leedahay oo dalka iyo dibadda si isku mid ah kaga shaqaysan kartay maadaama dalka aanu ku jirin hay'adda cayminta adduunka oo dalalka madax banaan dhaqaalahooda loo ogol yahay inay ka qayb noqdaan taasoo ku saacidi karto wadan kasta oo maalgashi raba iyo dadkii maalgashan lahaaba una leh
awoodda inay sharciga hor keento midkood wax isdabamarin ah sameeyo. haddaba Soomaaliya oo hadda dib ula soo noqotay madax banaanida dhaqaalaheeda ayaa fursad u heli karta inay ku biirto hay'adaas oo keeni karta wadanka maalgashiyaal caalami ah halka ganacsatadeenana ay qiimo ka yeelan doonaan dunida inteeda kale kuna xirnaan doonta heerka dhaqaalaheena, siyaasadeena iyo awoodaha wasaaradaheena arrimaha dibadda iyo gaashaandhiga. haddaba daawade fursad ma u aragtaa deyn cafinta mise nala wadaag fikirkaaga qiimiga mudan. waa tahay daawadayaal weli barnaamijka bandhiga mudiirka ayaa daawanaysaan, markaana qodobkeena kale ayaynu eegaynaa. coronavirus maxaa ku dhacay ragga Malaysia markii la yiri reerka u soo adeega? aan u gudgalno warbixinta. go'aankii ay dawladda Malaysia ugu ogolaatay in kaliya qofka madaxa u ah reerka uu guriga ka baxo si uu qoyska ugu soo adeego, taas oo qayb ka ah talaabooyinka looga hortagayo faafitaanka xanuunka COVID-19 ayaa waxaa ka dhashay jahwareer. ragga qaar ayay kadis ku noqotay marka ay ogaadeen inay mas'uul ka yihiin adeega qoyska, waxaana ku adkaatay inay kala saaraan noocyada khudaarta, xawaajiyada, cuntada lagu darsado iyo waxyaabo kale. in ay dawladdu ogolaato in nin uu qoyska adeeg u doono isagoo aan lala socon waa musiibo, ayay haweeney ku soo qortay barteeda Twitterka. rag badan ayaa la arkayay iyagoo dukaamada ku sugan isla markaana dhowr jeer hubinaya in adeegii loo soo diray ay soo iibiyeen. jahwareerka dhabta ah ee wax soo iibsashada waa marka ninka oo reerka madax u ah oo u baxo si uu u soo adeego. taas waxaa ka sii daran marka uu ninku kala garan waayo noocyada khudaarta kala duwan, ayay tiri haweeney kale. rag badan ayaa qirtay inay ku wareereen adeega qoyska. waan ku wareeray markaan kala saari waayay khudaarta, ayuu nin ku soo qoray bartiisa Twitterka. waxaa sidoo kale yaalay noocyo kala duwan oo ansalaato ah, kuwa dhaadheer, kuwa gaagaaban iyo kuwa wareegsanba. ragga qaar wax dhib ah kuma qabin liiska adeega loo soo diray ilaa ay arkeen suufka nadaafadda haweenka. waan ka yara xishoonayay inaan liiska ka saaro. Sayyidatul Akhmar Yahya oo 37 jir ah kana shaqaysa bangi ayaa BBC Monitoring u sheegtay in mar walba ay iyada soo iibiso adeega reerka, isla markaana walaalkeed oo 30 jir ah Amirul Shaafiq uu soo raaci jiray. maadaama ay toddobaadkan guriga ka shaqaynaysay, waxay walaalkeed u dhiibtay liiska adeega ay u baahan tahay oo ay ka mid ahaayeen digirta cagaaran, misirta qalalan oo ay doonaysay inay maraq ka samayso. balse wuxuu soo laabtay isagoo wada nooc kale oo digir ah. wax aan kula hadlo ayaan garan waayay, waan iska quslay, ayay tiri. Amirul Shaafiq ayaa sheegay in walaashiis ay afka uga sheegtay adeega, balse marka uu dukaanka tagay ayuu ku wareeray nooca digirta loo diray. waxay sidoo kale ku qaadatay 1 saac iyo bar inuu soo adeego. waxay i weydiisay sababta aan u soo daahay. ragga qaar ayaa qiyaasta adeegii loo diray mid ka badan soo iibiyay, balse dukaamada qaar ayaa la yimid hab ay ragga ku cusub adeega ay u kala garan karaan noocyada khudaarta iyagoo qoraallo ku dul dhajiyay. dadka qaar ayaa ku talinayay ragga inay hubiyaan in taleefankooda uu dab leeyahay marka ay guriga ka baxayaan, si wixii ay ka shakiyaan ay wala tashadaan xaasaskooda, balse aysan sameecada kala hadlin. mid ka mid ah ragga soo adeegayay ayay xaaskiisu taleefanka ka canaanatay isagoo sameecada kala hadlaya. karooto qaldan ayaa soo iibisay bay ku tiri. waa tahay daawadayaal, guntii gabagabadii barnaamijkeena ayaynu isla soo gaarnay.
guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa barnaamijkii aad kala socoteen Xareed Media. intaan ku kulmi doona barnaamijkan kiisa xiga waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.